Laba haween ah oo hadiyad uga dhigeen saygooda ama xaajiga qaba gabar dhalinyaro ah si uu u guursado noloshana ula qaybsado. Si aan u gudagalno muuqaalkan, walaal like saar aragtidaada ka dhiiba sheer gare oo nagu soo bir si saaxiibo badan u gaaro muuqaalkan adna aad u rukumato muuqaalada maalinlaha ah. Mahadsanid in badan. Laba haween ah oo xaas u ah oday 70 sano jir ah ayaa xaajigooda ama sayga qaba waxa ay hadiyad uga dhigeen gabar dhalinyaro ah. Labada haweenka ah ee xaajigooda bandhigan cajiibka u sameeyeen ayaa waxa ay sheegeen in xaajigoodu uu 70 sano jir yahay, una arkeen in uu u baahan yahay gabar dhalinyaro ah oo 20 sano ka yar, sidaasna ay ugu dooneen gabadhaasi maadaama sharciga Islaamku uu oggol yahay in raggu ay 4 haween ah guursan karaan, sidaasina ay ugu guuriyeen. Odaygan 70 sano jirka ah oo lagu magacaabo Cawad bin Amuthar al-Tawb oo reer Daa'if ah ayaa warbaahinta la wadaagay in uu aad uga naxay ugana shoogay markii uu ka maqlay labadiisa xaas in ay doonayaan in uu guursado xaas kale oo saddexaad oo weliba gabar dhalinyaro ah, iyaguna ay u dooneen si uu ugu raaxaysto, iyaguna ay ku taageerayaan si ubad kale uu u helo. Waxa ayna sheegeen in muddo badan uu iyaga qabay, isla markaana markan ay u garteen in uu gabar la guursado dhalinyaro ah, iyagoo xitaa dhaqaalaha iyo dhinac waliba ka taageeraya, isla markaana ay labadoodu si wadajir ah u go'aansadeen in xaajigooda ay si kedis ah ugu guuriyaan gabar dhalinyaro ah isagoon ka war haynin, sidaasina ay ugu dooneen gabadha dhalinyarada ah ee xaajigooda uu la aqal galay. Cawad bin Amuthar al-Tawb ayay warbaahinta Sacuudigu qortay in uu yahay ninka kaliya ee Sacuudiga iyo caalamka dhanba la oran karo in uu yahay midka ugu nasiibka badan, maadaama xaasaskiisu ay u guuriyeen gabar dhalinyaro ah oo goordhow qaangaartay, haddana qarashka iyo wax waliba oo ku baxaya guurka gabadhaasi ay la garab taagan yihiin labadiisa xaas ee horay ilmo badan ugu dhaleen. Haweenkan ayaa sheegeen in ay doonayaan in ninkooda ay ka dhigaan nin aan marnaba murugo dareemin, oo mar waliba iyaga iyo xaaskiisa saddexaad ee ah gabadha dhalinyarada ah uu u guuriyay in mar walba jawi farxadeed ay ku wada noolaadaan. Sidee u aragtaa dhacdadan cajiibka ah? Gabar ay xaajigeeda sidan ma u samayn lahayd? Wiilow, adna sidan ma jeclaan lahayd? Walaal like saar muuqaalkan haddaadan horey u saarin, waxaanu kaa codsanaynaa inaad follow dhahdo page-kan oo aad nagu soo biirto si muuqaalada maalinlaha ah aad u rukumato. Mahadsanid mar kale.